February 2017 afar sano ka hor inta farmaajo uusan madaxweyne noqon waxa Soomaaliya ay guushi ugu horeysay uguna dambeysay ka gaartay galka dacwadda badda. Cadaadiska Kenya maanta ku hayso dawladda hadda jirta ee uu madaxweynaha ka yahay farmaajo mid la mid ah ay ku haysay dawladdii Xasan Sheekh, balse waxa kala duwan qaabka ay u wajaheen. Xasan Sheekh waxa uu kaga dabaashay siyaasad qorshaysan oo diblomaasiyadda ay sal u ahayd. farmaajo waxa uu ku wajahay siyaasad qalqalsan oo dhowr jiha leh, taasna waxa ka marqaati kacaya taariikhda. kiiskan maxkamadda yaala waxa uu la kulmay laba madaxweyne oo xilka isku wareejiyay 2 sano oo Xasan Sheekh ah iyo 4 sano oo farmaajo ah. 2 sano xaaladda sidan bay ahayd. ayaa maanta waxa ay ka bilaabantay xarunta maxkamadda caalamiga ee Hague ee dalka Holland. xukuntay inay qaado dacwadda muranka ka dhex taagan Kenya iyo Soomaaliya. taasaan daba taagnaanayna ilaahay haddana waan soo daba taagnay ilaahay idinkiis waan ku guuleysanaynaa. dadka Soomaaliya waxaan rabaa inaan u caddeeyo waan ku guuleysanaynaa. 4 sano ee farmaajo uu madaxweynaha ahaa 3 goor ayay Kenya hor joogsatay socodka dacwadda. كمراسيه ودمada Kenya iyo Soomaaliya ayaa muddo 2 bilood ah dib u dhigtay. maxkamadda caalamiga ah cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa markii labaad dib u dhigtay dhageysiga dacwadda markale dib loo dhigay dhageysiga maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda. Agosto 2014 ayay ahayd markii ugu horeysay oo ay Soomaaliya maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda geysay dacwad. 2014 ka hor waxaa jiray sheegasho Kenya ay sal uga dhigtay heshiis afgarad ah oo dhex maray dawladdii ku meel gaarka ahayd 2009. maxkamadda ICJ kiis kasta ma aqbasho. Soomaaliya marxaladda ugu adag oo ay wajahaysay ayaa ahayd in dacwadda laga aqbalo. Cadaymaha farsamo iyo kuwa qaanuun ee qareennada Soomaaliya soo bandhigeen marka la eego rajada Soomaaliya inay guulaysato oo sareysay darteed, Kenya waxay awoodeedu isugu geysay in maxkamadda ICJ ka hor istaagto qaadida dacwaddan. balse isku dayada Kenya oo idil waxa ay ka socon waayeen dhanka Soomaaliya oo diyaar garow xoogan ka muuqday. waxaana Soomaaliya dacwaddan ay u xulatay qareenno iyo khubaro caalami ah oo isugu jira Soomaali, Mareykan, Faransiis iyo Ingiriis. Kenya waxay Soomaaliya saartay cadaadis diblomaasiyadeed iyadoo isticmaalaysa awoodda ay ku dhex leedahay midowga Afrika iyo dunida, balse siyaasadda arrimaha dibadda ee dawladda Xasan Sheekh oo ku salaysnayd inay dibadda cadow ku yeeran waxa la yiraahdo zero enemy outside ayaa abaabushay in Muqdisho uu ku qabsoomo shirkii golaha wasiirada IGAD, waxaana uu qabsoomay January 2015. shirkan ayaa lagu go'aamiyay in madaxda dawladaha IGAD kulan midkan ka weyn ku yeeshaan isla Muqdisho. Kenya cadaadiska ma aysan joojin, wuxuu u gaaray heer fiisaha iyo socodka dadka Soomaaliyeed ku dhibto. dawladda Soomaaliya ayaa falkaas uga jawaabtay joojinta qaadka mirowga ee Soomaaliya yimaada, hayeeshee ma gaarin heer safaaradaha la kala qaato. September 2016 shir madaxeedkii IGAD ka qabsoomay Muqdisho waxaa ka soo qayb galay Uhuru Kenyatta oo xal u raadinaya ganacsiga qaadka iyo dacwadda badda oo uu cambaareen xoog leh kala kulmayay mucaaradka Kenya. magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay muddo ka badan 40 sano martigelisay shir madaxeedka dalalka ku jira urur goboleedka IGAD. waxaana xusid mudan iyagoo ay joogaan Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh, ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid iyo wasiirka arrimaha dibadda ee bariga Cabdisalaan Hadliye in Uhuru uu soo dhaweeyay Cali Axmed Jaamac Jangeli oo ahaa wasiirka gaadiidka iyo howlaha guud. 3 sano kadib March 2019 ayaa madaxweyne farmaajo cabasho ka ah Kenya waxa uu tagay Addis Ababa, waxaana halkaas ka soo kaxeeyay Abiy Ahmed oo erge ka ah Soomaaliya. farmaajo iyo Abiy ayaa ka kicitamay Addis Ababa. diyaaradda gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa madaxweynaha Soomaaliya lagu geeyay Nairobi. kulankan warar hordhac ah oo ka soo baxay kuwaas oo ay qoreen jariiradaha ka soo baxa Kenya iyo warbaahinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in heshiisku meel gaar ah la gaaray, kaas oo sal looga dhigay Jubbaland in madaxweyne farmaajo gacanta loo geliyo, isagana uu dacwadda u la noqdo ama uu aqbalo in dib loo dhigo. 3 goor oo dacwadda badda dib loo dhigay, Soomaaliya kama aysan hor imaan maxkamaddana wax cadaadis ah maysan saarin, balse ugu dambayn farmaajo oo ka quustay Kenya inay gacanta u geliso Jubbaland ayaa diiradda dib u saaray dacwadda isagoo doonaya inuu u isticmaalo ololaha doorashada. waxaana fashilka dacwadda badda uu sabab uga dhigay in isaga loogu yeero madaxweynihii hore. madaxweynaheena hadda jooga oo waqtigiisa dhamaaday sharci kuma fadhiyo. haddaan xilka ka degana qadiyadaas waa u taaganahay, haddaan xilka sii hayana qadiyadaas waa u taaganahay. biyaha Soomaaliya annaga iska leh.